Bismillahirrahmanirrahim daawadayaal ku soo dhawaada YouTube-ka wararka Soomaalida qodobada ugu waaweyn aan idin haynin daawadayaal waxa kamid ah Wafuud ka socda madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sii qulqulaya magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal waxa ku sii qulqulaya wafuud kala duwan kuwaas oo doonaya inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi oo hogaaminayo oo ka ambabaxay magaalada Kismaayo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe sidoo kale madaxweynayaasha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa gaaray magaalada Garowe iyagoo kamid ah wafuud ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka madaxweyne Saciid Dani sidoo kale madaxweynayaal hore xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa gaaray magaalada Garowe kuwaas oo iyagana ka qayb galaya xafladda qaar kamid ah madaxda ugu sareysa dalka ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaaladaasi kuwaas oo ka qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani arinta xiisaha leh waxay tahay madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kala aragti duwan ayaa madasha isku arkaya kuwaas oo suurtagal tahay inay halkaasi isku dhaafsadaan hadallo kaftan u badan oo midka kale uu ku durayo ammaanka magaalada Garowe ayaa aad loo adkeeyay waxaana sidoo kale saacadaha soo socda la filayaa inay tagaan qaar kamid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka dhanka kalena Itoobiya ayaa heshiis la gaartay laba garab oo ka tirsan jabhadaha hubeysan ee dalkaasi ka dhisan dawladda Itoobiya ayaa heshiis nabadeed la gaartay laba garab oo kamid ah jabhadaha oramada taas oo soo afjaraysa colaadda iyo gadood hubeysan oo bilooyin ka taagnaa qaybo kamid ah dalkaasi sida ay baahisay wakaaladda wararka Itoobiya ee loo soo gaabiyo jabhadan oo kala ah Oromo Democratic Party iyo Liberation Front ayaa Khamiistii shalay heshiis la saxiixatay isbahaysiga hay-adda dalka Itoobiya kadib shir dib u heshiisiin oo talaadadii toddobaadkan ka dhacay Addis Ababa Milkiisa Midkesa oo ahaa wakiilka ODB iyo waliba Daawud Ibsa oo ah gudoomiyaha OLF ayaa si wada jira u ballan qaaday inay iska ilaaliyaan dhiig dambe oo daata horeyna uga soconayaan wixii dhacay dibna aan loo noqon doonin iyagoo isku afgartay in la joojiyo falalka gacanka hadalka iyo rabshadaha hubeysan ee ka taagan qaybo kamid ah dalkaasi Itoobiya kulanka ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ka kooban 17 xubnood oo lagu talagalay inay ka shaqeeyaan dabagalka howlaha hubka dhigista qaramaynta maleeshiyada jabhadda OLF iyo dhameystirka dhammaan qodobadii lagu heshiiyay heshiiskan waxaa goobjoog ka ahaa qaar kamid ah hogaamiyaasha sarsare ee oramada iyo oday dhaqameedyo culimo u diin kala duwan aqoon-yahano dhalinyaro iyo wakiilo siyaasadeed waxaa bilihaynu soo dhaafnay galbeedka Oromiya ka soconaya dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dawladda Itoobiya iyo jabhadda OLF taas oo ay xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ka saartay liiska ururada loogu yeeray argagixisada dalka Itoobiya daawadayaal warkii aad kala socoteen YouTube-ka wararka Soomaalida waa naga inta fadlan subscribe share garay